السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارتا قيمها بدن أصحابتا شرفتا بدن ملكستو آد شوكتان وحان دي رجيني عافماد قب باش برواقعين آد كسوغانتهين آد بان دي وضا السلامية وولالكين مصطفى عبد الرساق ويدي الله السودوادا انتاني هورين ولا شوكتي ودنا شوكتين انتاني عصب انو صبيرتي وحان لاي هاي فضلا سبسكرايب تنوصارا لايك دي شيرتون وصدقي صيفا فيها waxrajeenayaa inaad waxyaabo fara badan oo aqoon iyo cilmi ku dhisan taariikho wax badan aynu kala faa'iideysan doono idinkuna aad naga faa'iidi doontaan insha Allah maanta oo taariikhda miilaadiga ay marayso 7 bisha May teeni kale ee Rabadaantuna ay marayso 25 maalin Jimcaana ay tahay waxaan jeclaysanay in aan ku soo afurno barxadda ama duleedka magaalada Hargeysa hadba sidaad u taqaanaan sidoo kale maadaama aynu bishii May ku jirno sanad kastana xilligan oo kale ay dad fara badan u dabaaldegaan bisha May sanad guurada 18 May waxaan jeclaysanay inaanu anaguna ka qayb qaadano u soo dabaaldegno 18 May waxaan jecelnahay farxadiina waxaan jecelnahay in aad mar walba nala qosashaan nala dhol cadeysaan idinkuna nagu xidhnaada oo soo dhawaada مساكين رونو محمد هذا المحيب ذادي مركعيا نبي الله معانو رسولكم معبود ديرتو مقاسمو معلنكي أدونك إلى مسلم مدحو قادقو markii uu yaraamikii tagay maqan raacaye malaa'igi qaatay laman roge meel la geeyay markii uu yaraamikii tagay maqan raacaye malaa'igi qaatay laman roge meel la geeyay mirkiyo xumihi laga mayrayo mirkiyo xumihi laga mayrayo mirkiyo xumihi laga mayrayo mirkiyo xumihi laga mayrayo adan muhibbadaadii mirkacaya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخياري والد السلامي ميل كستو جوجتان waxaan idin rajeenayaa caafimaad qab ilaahay bisha barakeysanay Ramadaan teeda haynu u gaarsiiyo bashbashiyo barwaaqo iyo nabad qab iyo caafimaad qab waxaan ku jirnaa 10kii dambe ee Ramadaan waa bilihii ugu khayrka badnaa waa maalmihii ugu soo degay quraanku waa maalmihii sharafta badnaa waa maalmihii aynu rajeenaynay in muxuu ahaa ilaahay dambiyadeennina horena dhaafo xasanaad iyo ajar inoo qoro guud ahaantiin iyo gabi ahaantiinba waxaan doonaynaa inaan halkan aniga iyo asxaabtu aan uga hambalyeeyno munaasabada 18 May ee Jamhuuriyadda Somaliland waa munaasabadii taysodonaad بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaan halkan hambaliyo iyo bogaadin aad u qiimo badan aad u sharaf badan isla markaana runtii aan la soo koobi karin uga dirayaa dhammaan shacbi weynaha jamhuuriyadda Somaliland meel kasta oo ay dunida ka joogaan maanta waxaan ugu hambaliyeynayaa munaasabadda 18 May ee inagu soo foodo leh waxaan leeyahay hambaliyo waa maalinteennii waa maalintii qarannimada jamhuuriyadda Somaliland aynu muujinaynay waa maalintii calanka jamhuuriyadda Somaliland aynu dunida sida baahsan ugu baahin jirnay ee aynu tusaynay in ay jirto jamhuuriyad barakaysan inagoo u dabaaldegayna sanad guuradeennii 30aad ee 18 May runtii waa maalin aad iyo aad u qaaliya waxaan halkan hambaliyo mar labaad iyo mar saddexaad uga dirayaa
madaxda ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxaan ku leeyahay hambalyo nabi allow macaano rasuulku macbuud dirto magaasabo macallinkii